darayba bacalaba uu ka ciitamay dhanka gobolka erar xarunta magaalada Fiiq iyadoona wafdigeena ballan hogaaminayay madaxweyne Cabdi Maxamed madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ujeedada socdaalkiisu tahay sidii xariga looga soo jari lahaa mashaariic mug waaweyn ay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ka hirgelisay gobolka erar oo ay kamid yihiin buundada Mayumuluqo oo isku xidhaysa degmada Mayumuluqo iyo xarunta gobolka erar ee magaalada Fiiq iyo waliba wadada laga sameeyay buraha dhaadheer ee erar oo isku xidhaysa xarunta gobolka erar ee magaalada Fiiq iyo degmada Mayumuluqo iyo sidii xariga looga soo jari lahaa biyo gelinta laga soo jiiday toga erar isla mar ahaantaana la soo dulmeliyay buraha dhaadheer ee gobolka erar iyo sidii xariga looga soo jari lahaa kuliyada farsamada iyo gacanta ee gobolka erar oo waqtigeena dhismaheedu uu dhamaaday isla mar ahaantaana bulshada gobolkan ku dhaqan iyo nawaaxigeedu ay ka faa'iideysanayso isla mar ahaantaana wafdigu soo dhagax dhigayo mashaariic mug weyn oo uu kamid yahay mashruuca biyo gelinta Itishaale ilaa iyo Cobasha oo 70 kilomitir isku jira madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamed Cumar iyo wafdiga ballan hogaaminaya intii socdaalka ay ugu kicitameen xarunta gobolka erar ee magaalada Fiiq waxa ay sii mareen tuulooyin kala duwan oo ay kamid ahaayeen Goray Ceel Baxay Caanood Idishaale Biiqa Abu Hureyre xarunta degmada Baabili ee Dhadhamane Dhowrto Cali Itoobiya Cobasha Dudumacadka Daala Simane Danqa Harheebaan iyagoona gaaray xarunta gobolka erar ee magaalada Fiiq waxaana wafdigani madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar hogaaminayay intii ay marayeen tuulooyinkaasi kala duwan sidiiran ugu soo dhaweynayay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan tuulooyinkaasi soo dhawaada aad iyo aad baan idin jecelahay mudane madaxweyne qalbigan ka jecelahay adiga xukuumaddaadaba anoo ku hadlaya codkii hooyooyinka degmada Baabili gaar ahaan magaalada Dhandhame iyo dhammaan xitaa ragga aan u dhalayba madaxweyne oo ku salaamaya mar labaad baan ku salaamaya 14 iyo 100 quraanka cadadiisa ku salaamaya adiga xukuumadda kula socota ugaasiyada dhalinyarada ciidanka nayu qaran wadanka kullu waan salaamaya madaxweyne adiga oo mahadsan oo waliba mudan madaxweynaha sharafta leh maadaama uu maanta hor taagan yahay waa alla mahadi 100% alxamdulilaahi rabbil caalamiin 100% ilaahay baan u mahad celinhayaa marka kale markaan ku celinhayo waxaan u baahanahay adiga oo kollay wax qabad badan noo sameeyay oo wax qabadkaaga mid iyo laba lagu soo koobi karin 100% adiga oo mahadsan dugsiyaado noo sameeyay biyaado noo sameeyay caafimaadado noo sameeyay wax walba adiga oo noo sameeyay ku darsasho ahaan waxaan ka codsanaynaa dugsi sare biyo macaan heer santarka caafimaadka oo naloo qalabeeyo isaguna madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar kula dardaarmay qaybaha kala duwan ee ku dhaqan bulshooyinka ay marayeen sidii bulshadu ay u sii xoojin lahayd dhanka wax soo saarka beeraha horumarka qaybihiisa kala duwan ay uga faa'iideysan lahaayeen isagoona ka jawaabaya codsiyada kala duwan ee bulshada sheegayna in si degdeg looga jawaabi doono codsiyada dhanka horumarka ay bulshadu xukuumadda ka rabaan Itishaale ilaa iyo Cobasha inta u dhaxaysa waxaan gelinaynaa biyo sida waxa weeye wadada ay u socoto wadada garab socda oo laamiga garab socda haddii la yiraahdo 10 kilomitir ama 5 kilomitir baynaad biyo macaan oo miisaanadiisi la hayo oo waxa weeye idinka la idin qabtay ayaa maxaan ku rahaa ay xukuumaddu ku tala gashan tahay waxa weeye inta u dhaxaysa Cobasha iyo Itishaale oo meesha qabalayga Soomaalida laga soo galaa inta tuulo kasta waxa la soo mari doonaa biyo si degdeg ah maaha maxaan ku rahay wax waqti qaadanaya ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sidaan oo qorshaysan inuu hirgeliyo hadii la yiraahdo marka taadiyaha sida ugu dhaqsaa baan la idinku sameeyay tan dugsiga sarana hadii la yiraahdo waqti gaaban ma kaga soo jawaabina dugsiga sare hadii la yiraahdo waqti gaaban dugsi sare inay Cobasho xaq u leedahay inay shan xaq u leedahay dadkeedii waxa weeye maxaan ku raayay nidaamkeedii way haysaa insha Allah hadii la yiraahdo marka labada qorshe iyo qorshaasha horumarineed iyo qalabeynta santarka iyo shaqeeyo caafimaadku inta waan qaadanay laakiin hadda maanta waxaan ku faraxsanahay sida ay u cusubteen inay xukuumaddu u hayso qorshaha uu go'aansan yahay baarlamaanka deegaankuna uu go'aamiyay inta u dhaxaysa Itishaale iyo ama Biiqaan raaw iyo Cobasha in oo sanadka dambana Cobasha ilaa iyo Fiiq in biyo la geliyo laakiin fiiska koowaad waa hadda waxa weeyaan Biiqa ilaa iyo Cobasha inta u dhaxaysa baarlamaanku uu go'aamiyay in biyo la geliyo miisaaniyada koona weey kaliya in furiyo baadhow marka waxa weeyaan reservoir la sameeyo tuubadii la sameeyo si casriyaysan loo geliyo madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar wafdiga ballan hogaaminaya intii ay ku guda jireen socdaalkan waxa uu madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar
booqday wadada laamid ee isku xidhaysa magaalada Jigjiga iyo xarunta gobol wadada isku xidhaysa magaalada Jigjiga fiiq ilaa iyo xamaro oo waqtigan dhismaheeda si rasmi ah loo bilaabay una socdo isaguna intii ay socdaalka ku guda jireen wafdiga hogaaminaya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ay booqdeen ceelbiyoodka miisaaniyadda mashruucani laga hirgelinayo oo laga qoday tuulada Dudumacadka wafdiga hogaaminaya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumarna ay gaadheen xarunta gobolka Erar ee magaalada Fiiq Faarac Cabdi telefishinka caalamiga ee ESTV magaalada Fiiq caana ka dhan ashirweynaha abaabulka waxbarashada